barnaamijka ciyaaraha waxaan rabaa in aan ku soo qaato ciyaarta xiisaha leh ee dhexmari doonto xulka Ingiriiska iyo Mexico, taasoo xulka Ingiriiska oo aad iyo aad ugu walwal qabo oo waxaan la soconnaa ciyaarta inuu rabay in la keeno 7 habeenimo saacadda UK hase yeeshee laga diiday oo ciyaartaas ay dhici doonto markay saacaddu tahay 1 habeenimo oo xilli dambe oo wadanka UK Afrikana 3 habeenimo ay ka tahay. runtii waa ciyaar aad iyo aad u xiiso badan, aad iyo aad u adag oo waxaan la soconnaa ciyaartii ugu dambeysay Ingiriiska DR Congo inay farac dila uga soo fakadeen, laakiin ciyaartan ay Mexico la dheelayaan way ka duwan tahay oo waxaan la soconnaa Mexico inay gurigooda ay joogaan. Ingiriiskana sababaha ugu weyn oo u qaylinayo waxay tahay waxaan la soconnaa wadankaas wadan dhulkiisa aad u sarreeya inuu yahay oo oxygenka ama neefta aadan qaadan karin, taasoo aan la soconno ilaa 2000 oo mitir inay badda ay ka sarreyso. taasna ay keenayso dadka meesha u dhashay ama degan inay ay si fiican ula qabsadeen, laakiin dadka yimaado inay ku adagtaa, taasna ay dhibaato weyn ay ka sheeganayaan. hase yeeshee waxaan la soconnaa in 98 ciyaar ay ku ciyaartay Mexico oo tartan oo ama qaaradda America ama Israa'iilka World Cup-ka 2 kamida kaliya ayaa laga adkaaday oo inta kale way ku guuleysteen. marka Ingiriiska qorshaha oo hadda wato waxay tahay inuu difaac oo dheelo oo weer celin oo ku xisaabtamo. hase yeeshee su'aashu waxay ka taagan tahay yuu ciyaarsi doonaa difaaca oo waxaan la soconnaa dhinaca midigta ciyaaryahanka Spencer oo Tottenham u ciyaara in la isku haystaba sababta oo qaranka Ingiriiska u soo raacaba maxay ahayd oo ma istaahilo inuu soo raaco erey lamida inay isticmaalayeen oo ma u maleynaya ciyaartaas in la ciyaarsi doono. dhinacaas midigtana waa dhinaca ay aad iyo aad uga cabsanayaan oo waxaan la soconnaa ciyaaryahanka Julian Mexicanka 3 gool inuu leeyahay ayna tahay ciyaaryahanka aad iyo aad looga cabsanayo. nambarka 9aadna inuu u joogo ciyaaryahanka Jimenez ee Fulham u dheelo, kaasoo runtii lugta aan ku fiicnayn laakiin madaxa aad iyo aad ugu shaqaysto. Premier League-na ka ciyaar yaqaanana ciyaaryahanadan difaaca Ingiriiska aad iyo aad ula socdo kubada. waxaan qabaa haddii lagu soo rido Jimenez inuu madaxa oo aad iyo aad ugu fiican yahay, aad iyo aadna uu ugu dagaalami karo. marka Ingiriiska dhinacaas oo midigta ay keeni doonaan lama ogo oo waxaa laga yaabaa in ay keenaan Quensa lafsaantiisa ama ciyaaryahankan kale oo dhexda ka dheelayay oo nambarka 5 ahaan u dheelay oo Villa u dheelo Quensa inay geeyaan ayaa dhici karto. laakiin dhinaca bidixda Orale oo City u jooga ayaa u ciyaari doona. dhexda waxaan u malay doonaa inaysan waxba aysan ka bedeli doonin oo Declan Rice iyo ciyaaryahankan Elliot oo kooxda City ay la soo wareegtay iyo Jude Bellingham inay dhigi doonaan. haddana waxa weyn oo la isku haysto waxay tahay garbaha weerarka. waxay u baahan yihiin ciyaaryahano garbaha ka dheelo, waxna difaaco waxna weeraro. oo waxaan la soconnaa in ciyaaryahankan Rashford weerar ahaan oo uu fiican yahay laakiin soo naqshadiisa ama difaaciisa oo aad iyo aad u liito. marka waxaan isleeyahay dhinacaas bidixda Gordon ayay saari doonaan oo Gordon waa ciyaaryahan aad iyo aad u dheereeyo, difaacana kaalmeeyo, aad iyo aadna u dheereeyo. waxaan isleeyahay meeshaas bidixda waxay keeni doonaan Gordon ayuu ciyaarsi doonaa. Tuchel ayaan fili doonaa. haddii aan u dhaqaaqo dhinaca kale waxaan la soconnaa Madueke inuu dhinacaas midigta uu saaraya. hase yeeshee laftigiisa dhibaatada haysta waxay tahay kubadda marka uu la cararo uu rabo xarqan 18 inuu ku soo rido meel uu ku ridaayo ma yaqaano iskaga soo ridaya. dhibaatadaas ayaa laftigiisa haysato. soo naqshadiisa ama soo raacidiisana aad iyo aad ma fiicno. Bukayo Sakana waxaa u malaysaa weli inuu dhaawacayo Bukayo Saki inuusan ahayn oo meeshaas cilad weyn ay ka haysato. marka Morgan Rogers ayaa laga yaabaa in la keeno oo Villa u ciyaaro. hase yeeshee inta badan dhinacan wuxuu jecel yahay oo bidixda ayuu jecel yahay, laakiin waa laga yaabaa dhinacaas midigta in Rogers in la saaro way dhici kartaa. marka Ingiriiska iyo Tuchel xaalad adag ayuu ku jira. waxaan isleeyahay ciyaartan haddii Mexico ay ka adkaato Tuchel mustaqbalkiisa xulka Ingiriiska tababarnimada waxaa u malaysaa markaas inay dhibaato ay ku jirto. oo waxaan la soconnaa ilaa hadda 8 tababare in la raacday iyo qaar shaqada iskaga tagay oo Koeman-kii Holland ayaa ku jiro, Nagelsmann-kii Jarmalka ayaa ku jiro. marka niman waaweyn waxaa ku jiro tababarihii oo Uruguay Marcelo Bielsa ayaa ku jiro, tababarihii ugu horreeyay raacdayna waa la soconnaa Sabri inuu ahay tababarihii Tunisia markii 5 ay ka dhalisay Sweden.
marka ma sagaalay doonaa mase 10 ayuu ku noqon doonaa oo tababarayaal badan ayaa meesha la raacdiyey. Tuchelna waa la soconaa inuu yahay tababare difaac ku dhisanba oo ma qaba aniga tababarihii hore oo joogi jiray Southgate wax weyn inuu ka duwan yahay ma qabo. oo ninkan markuu Chelsea yimid waxaan la soconaa inuu Champions League isla markii uu ku guuleystay, taasoo muddo badan uusan ciyaareen oo tababarihii markii la raacdiyey Tuchel la keenay Chelsea, laakiin Chelsea markii dambe inuu ka dhigay koox difaac ku dhisan inuu ka dhigay, taasna ay sababtay in la raacdeeyo. marka caawa difaacii lagu yiqiin ayaa laga rabaa tababarahan Tuchel inuu isdifaaco kadibna weer celin ay ku qaadaan. Mexican waxaan la soconaa kubadaha inay aad iyo aad u dadejiyaan, ay xoogna ay u ordaan oo waxay joogaan magaaladoodii ayay joogaan, gurigoodii kale home game oo kale ayay haystaan. marka ma u malaynaya inay ka istaagi doonaan 90 daqiiqo, way carari doonaan, kubaddana waa dadeji doonaan. marka xulka Ingiriiska muxuu ka jawaabi doonaa waxaan ogaan doonaa. tayada oo leeyahay Harry Kane nambarka 9 ayuu noqon doonaa, laakiin su'aasha waxay ka taagan tahay koox difaac ku jirto Harry Kane kubadda loo tuuro intuu ordo kubadda ma la ordi karaa. ma u malaynaya inuu saas uu ku dhisay. Harry Kane wuxuu ku fiican yahay ciyaartoyda difaaca ku jiro oo xarqin 18 korkooda safan ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay kubadda in la siiyo, sababtoo markii la siiyo meel yar ayuu intuu ku leexsado oo isla markiina goolka uu tooga karaa. taas ma qaba anay koox difaac ku dhashay Harry Kane inuu ciyaari karo ama oo intuu kubadda la ordo oo wax samay karo, laakiin waxa dhici karta kubadda inuu celiyo oo markaas ciyaaryahanada garbaha ka dheela ama Bellingham oo orday inay u yimaadeen oo markaas kubaddii oo gaarsiiyo. waa ciyaar aad iyo aad u xiiso badan una weyn. aniga ma raba inaan ka sii dego oon dhaho koox hebel ayaa badinayso, laakiin waa ciyaar labada dhanba u dhici karta. marka adiga siday kuula muuqataa xulka Ingiriiska ma soo gudbi karaa Mexico mase Mexico ayaa soo gudbi karto? bal fikradaada nala wadaag.